السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وناكسنا أصحابي مالك سؤال جوكتان كسودو هذا برنامج كنا هبين نمو عاو برنامج كوحنا ذكوها يا نور غضب مهمة أو صوكري عدك أبو عبيدة أو لغم غلي برتمها إسرائيل كرا عرر يددكي ما إساقيان وقصور نور علي أياك العضي. To hell with Trump and Netanyahu. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الأخ مطرف يا روح الجهاد تضرب بكل القوة التي وهبك الله. واتاي فاينتا كوسابسن عدكاسي iyo sida uu ahaa iyo meesha uu ka hadlay Abu Ubayda iyo xaaladda ayaynu barnaamijka ku faahfaahinayna waa arin la yaab leh waxa soo kala idin hayaa Iran sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka oo sheegay markan haddii dagaal Israa'iil ay ku soo qaado Iran uu dagaal ka dhex qarxo inaanay Iran aqbali doonin dagaalka inuu joogsado ilaa Israa'iil cagta la mariyo sheekada ayana waan idin hayaa dhanka kale Israa'iil oo ka baaqdeen qabta Suuriya gudaheeda inay ka samaysmaan Xuutiyiin ayna u fududaato inay soo galaan gudaha Israa'iil haddaba cabsidan inta la eg maxay tahay iyana barnaamijkan idinku hayaa qodobada muhiimka ah ayaynu caawa barnaamijkeena ku faahfaahineynaa inta ku jirno waxay soo kordho waran asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka qodobo kala daran oo aad cajiib u ah dhamaantood waxaynu ku bilaabaynaa sawdka ama codka Abu Ubayda oo ku soo laabtay markale gudaha Israa'iil waanadii u saaray warbaahintii uu ka hadlayaa sidee wax u jiraan Abu Ubayda waa dhintay sootii la lahaa sidoo haddana u soo noolaaday sidoo haddana fi qalbi Israa'iil u yimid bartamaha Israa'iil sidoo uga hadlayaa arrinkaas la isweydiiyay waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah meelaha basaska laga raacayay maanta meelaha tareenada laga raacayay tikidhadu dadku ka goosanayeen shaashadaha waaweyn ku dhaganaayeen Abu Ubayda baa soo baxay nimankii Yuhuudda waxay yiraahdeen sheekada sidee wax u jiraan maxadda kasta waa la faaruqinay Abu Ubayda hadla muxuu waa dhinta sootaan tiraadeen qabbab war Abu Ubayda TV ka hadlaya waxa beesha ka dhacay waa la yaabay haddaba codkiisa waan idin dhageysiin doonaa iyo meel maxadda oo TV-gii baashi tikidhada laga goosanayay muraayadii ay ku taalay uu ka soo dhex baxay codkiisa waan idin hayaa laakiin marka hore aan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu ka qoray warbixin uu leeyahay codka Abu Ubayda wuxuu ku soo laabtay bartamaha Israa'iil wuxuuna abuuray cabsi iyo argagax ayuu Israa'iiliyiinta ku dhex abuuray haddaba waxaa la sheegayaa wax loo malaynayo in la sameeyay la dhex galay qalabka elektrooniga iyo shaashadaha maxadadaha ama goobaha laga raaco basaska oo aad u tiro badan oo Israa'iil gudaheeda ah in markaa laga dareemay cabsi dadkii meesha marayay kadib markii mar qura ay ka shidmeen shaashadahaasi ama TV-yadaas meesha ku dhaganaa hadallo af Carabi ah oo ay ku jiraan cod u eg codkii Abu Ubayda afayeenkii Kataa'ibul Qassam kaasoo akhrinaya aayado quraan ah iyo digniino kale oo uu shacabka Israa'iil u digayo kanaalka la yiraahdo 14 Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa sheegay in shaashadaha elektrooniga ah ee ku dhagan maxadadaha ama goobta laga raaco basaska iyo tareenada markaa la sheegay in laga maqlay cod af Carabi ku hadlaya oo markaa leh Allahu Akbar ma joojin doono hawlaheena waa sii wadi doonaa waxyaabahaasoo kale dadku hadlaya waay marka ninkii Abu Ubayda codkiisaba shaashad kasta ka soo baxay ma joojin doono jihaadka waan wadi doonaa nagtaa iska saari doonaa ay ku hayaan marka mid ka mid ah ayaa wuxuu duubay shaashadii dhulka taalay ee tikidka markaa goosato ku soo saaraysay aad wax ku qoraysay ayaaba codkii ninkii Abu Ubayda ahaa ka soo baxay aan idin tuso sida ay wax u dhaceen To hell with Trump and Netanyahu. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الأخ مطرف، يا روح الجهاد، تبرز بكل القوة التي وهبك الله إياها ضد عمليات الجحيم. واضح. marka halka maxaa ka dhacay argagax cabsi ilaa hadda waxay tahay cid yaqaan taqaana male. booliiskii ay yimid cid kastaa timid wixii waaba ka baxeen buux si kastaa loo baaray xagee laga soo galay yaa yaqaana. shaashadii darbiyada ku dhaganaa wixii meeshii tikidhada laga goosanayay basaskii tareenadii meeshii laga raacay kulli Abu Ubayda aashada waa la yaab. haddaba qodobka xiisaa leh barnaamijka waynu ka gudbaynaa. waxaa noo soo socdaa sheeko kaloo yaab leh. Iiraan iyo Israa'iil hadday isfarasaaraan labadeenna mida aakhira loo diray taagan tahay Iiraan. sheeko yaab la waay laakiin waa u tegaynaa sheekadaas. waxaan ka hormarinaynaa wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Nikolai Katz. waa nin wareersan sidiisaba, nin mar la diriraa abaanduulihii ciidanka wuxuu raba iska sheegaa. nin Netanyahu ka daran waay. waa wasiirka gaashaandhigga. ninkaas wuxuu yidhi maanta waxaa ka soo fakatay uu leeyahay suuriya ma la heshiinayno dhaa laba arrin dantood. maxay tahay labada arrin? mid wuxuu yidhi waa arrintii duruuska kuwa la leeyahay oo macnaha duruusiyiintii suuriyaankii duruuska ah diinta aan jirin haystayo kuwaas oo Israa'iil gacanta siinayso oo maalmo dhan buuq ka taagnaa, iyo xuutiyiinta oo suuriya maaragtay ka soo baxayo. aniga xuuti ha igu soo dhisin oo taagaya. xuuti ha igu soo dhisina. xuuti inuu suuriya saldhig ka samaysto uu soo dego wallahi inaysa Israa'iil noolaanayn. annaga iyo suuriya taasaa marka ku kala shakisanayo. suuriyaanku waxay taageen war muwaalatiin adig xuutiga shiico waaye. xisbullahi iyaga isku qoomay ahaayeen. markiina la leynayay sunniyiintan suuriya qabsaday ayay maartay xisbullahi kuwana isku leenaayeen iyo Bishaar al-Asad la jireen. ma waxaas beeyeen anaga haye annaga xogta aan hayno xuutigu inuu halkan ukuma soo dhigtaan haynaa. marka suuriya waa inay arintaa naga shaafisaa. way yaabeen suuriyaankii ay yaabay. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray wakaaladda wararka ee Anadolu waddanka Turkiga waxay leedahay Katz ninka la leeyahay waxa uu sheegay inaanay wax nabada la qaadan doonin Dimashq. waxaana uu sheegay inta ay socdaan abaabulka xuutiyiinta suuriya ay ka wadaan. marka ninka marka waxa leeyahay wasiirka difaaca Israa'iil Katz ayaa sheegay inaysan Tel Aviv diyaar u ahayn nabadda Dimashq ilaa inta wararka la sheegayo xuutigu inuu halkaa nashaad ka wado aanay marnaba aqbali doonin. iyo arrinta ku saabsan arrimaha duruuska nimanka la leeyahay. haddaba labada arrimood inta ay ka cadaynayso suuriya annagu wax heshiisa la galayna male. hadalkan waxa uu ka sheegay xilli uu kulan la qaadanayay guddida baarlamaanka Israa'iil ee u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda iyo ammaanka. ninka Katz la leeyahay cabsido kuushadaaba asagaaba nin aan caadi ahayn. wuxuu ku taagan yahay suuriya xuuti halkan noo keenaysaa. aniga waxaan ka shakiysanayaa meeshaan xuuti inuu ku jiro. marka sheekadaas iyadoona way socotaa. qadar xayeysiisa kadib arrinta Iiraan iyo Israa'iil ayaa galayna oo war xiiso leh idinkaga haya. joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka. qodob aad u xiiso badan ayaan caawa ku soo qaadanayna barnaamijka. nimankii Iiraaniyiinta ahaa waxay taagan yihiin annaga iyo Israa'iil markale haddaan istaabanno ma la joojinayo dagaalkaas. haysee rabtiin waa isku dhammaanaynaa dheen. nimankaa ilaa cagta aan marino dhulka la sinno dagaalka maba ka joojinayna yidhahdeen. war cusubaa soo baxay. war nimankay nuclear haystaan sidee wuxuu ayay u taallaydheen nuclear hadday haystaan ciddaa haysanaa la iswaraysanaa. hadduuba xabaddu bilaabatay dheen markaan hala joojiye maba yeelina dheen. niman maxmeel soo dhigtay weygiin Iiraaniyiinta maaragtaa gadaala soo gatay difaacooda soo xirtay oo wax soo toosayeen weygiin say u booteynayaan nimankan waa ka yaab. haddaba aan idin tuso jiradda la yidhaha Sharqul Awsad
waxay leedahay wuxuu ka digay la taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan Maxamed Rida Naqdi ninka la yiraahdo khamiista maanta wuxuu sheegay in ciidamadooda Iiraan aanay joojin doonin dagaalka soo socda hadiiba uu qarxo kaasoo uu sheegay ilaa inta ay ka burburinayaan Israa'iil oo ay dhulka la simayaan in dagaalka aanu joogsan doonin arrinka wuxuu ka sheegayay dhoolatus ay ciidamada awoodooda Iiraan ku soo bandhigayeen iyagoo dhoolatuska ku sameynayay meelo kala duwan oo ka tirsan gudaha Iiraan ninkaas warkiisa ka yaabay ninkaas warbaahinta waxay soo qaadanayaan inta uu leeyahay dagaalka ma joogsanayaba agta marinayna wakaan wax aan ka reebayno markan haday bilaabato ma jirto wax ma ka reebi kartay yaa dhihi kara 12 maalmihii ugu horeeyay magaalooyin dhan ee Gaza camal ka dhigeen waa aragtay fiidiyoyada laga soo duubay dhulka la sibay maxaa dhaana dhulka la sibay dagaalka si socon lahayd Israa'iil waxay sheegay lahayd nuclear waxay u ahaadaan bayagana waxaana lagu hurgufi lahaa marka Mareykanka inta fiirsho wuxuu yiri xaalku ma sahlanay laga gaaro nimanka laga joojiyo wax marka sheekada marka ninkan marka baad ka yaabay wuxuu leeyahay dagaal hadduu qarxo joogsi ma jiro waa isku dhamaanayna isku baabaayna nimanka cagta marinayna tagay waaytay fikirkiina iyo aragtidiina ka dhiibta barnaamijka qodobada ku soo qaadanay caawa barnaamijkeena waa laga intaa saxaabay meel kasta joogtaan barnaamijkii galabnimo ee kii subaxnimo iyaguna qodobo aad u xiiso badan baa ku jira waan filayaa inaad daawad doontaan inta aan mar kale kulmayno saxaabay nabad